Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Banooda Media waxay halkan idinku soo gudbinaysaa barnaamijyo kala duwan iyo qisooyin dhab ah. Banooda Media haddii aad member ama xubin ka tahay waad mahadsan tahay, haddii aadan member ka ahayn fadlan nagu soo biir. Waxaan jeclahay in aan halkan idinku soo gudbiyo qisooyin gaagaaban oo dhab ah oo cajiib ah, waa dhacdooyin oo aan goobjoog u ahaa xilligii dagaalada sokeeye ka socdeen Soomaaliya. Qisadan waxay ka dhacday magaalada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose, Soomaaliya. Nin dhalinyar ah oo ku hubaysanaa qoriga AK-47 ayuu wuxuu isbaaro dhigan jiray geedka weyn mukayga hortiisa degmada Afgooye. Marka la soo dhaafo buundada isku xirta Wanlaweyn, Bay, Bakool iyo Gedo. Wuxuu isbaarada dhigan jiray waddada dhexdeeda baabuurta inta aysan u soo leexan dhinaca geedka. Baabuurta waxay istaagtaa geedka agtiisa si safarleyda ugu adeegtaan goobtaas. Geedka hoostiisa waxaa lagu gadi jiray khudaar iyo waxyaalo kale oo loogu talagalay dadka safarka ah. Waxaan filayaa ilaa iyo maanta in wax lagu iibiyo goobtaas. Ninkaas wuxuu samayn jiray, asagoo hubaysan ayuu hor istaagi jiray baabuurta safarka ah, markaas ayuu dadka qof u soo dejin jiray asagoo qoriga ama banduuqa ku sii jeedinayo ama ku taagayo. Wax alaale waxay wataan raashiin, dhar, maacuun, lacag iyo wixii la mid ah ayuu ka qaadan jiray, iyadoo oo dadka baryootamayaan ama tuugtamayaan, kuna dhawaaqyaan walaal ii dhaaf, intaas keliya ayaan wataa, carruur yar yar oo aqoon ah ayaan u wadaa, waalidkay oo waayeel ah ayaa guriga ii joogo, awkay ii dhaaf kiinin ducaaye. Nasiib daro waxaas oo dhan dheg uma dhigi jirin, sidaas ayuu dhacaas foosha xun ugu geysan jiray safarleyda in muddo ah ilaa uu ku waashto. Muddo kadib, anigoo safar ah ayaan soo maray isla goobtaas, waxaan indhahayga saaray ninkii isbaarada dhigan jiray oo qaawan oo sidii hooyadiisa ku dhashay oo waashtay asagoo geed yar oo qalalan gacanta ku sito sida qoriga AK-47 oo taagan baabuurta hortooda oo keligiisa isla hadlayo oo leh soo deg waryaa, awkay ii dhaaf, walaal ii dhaaf. Waa arrin mucjiso ah, qofkii ummadda dhib u geysta meel xun ayaa u dambaysa aakhirkiisa. Sida aan ka warqabno, 2 qof adduunyada ayaa lagu cadaaba, iyadoo tii aakhirana u dambaysa: 1 qofka caasa waalideynka ah, 2 qofkii dulma qof kale ama ummad. U gargaar ummadda haddii aad rabtid in Allah ku gargaaro. Qisada maanta intaas ayay ku eg tahay. Filo qiso kale oo cajiib ah dhowaan. Mahadsanidin. Sidaas iyo nabadgelyo.